wiilshan 10 jir ah ayaan guursaday wuuna ka soo bixi waayay tilaabadii aan rabay mise sidii aniga aan rabay wuu ka soo bixi waayay maxoogaa ka wahaa la dhahay maxaa maxooga kaw ka siiyey maxooga waxa kaw ka siiyey maxay tahay egfisho arrin aysan filaynin ayay la kulantay habeenkii koowaad ee arooskeeda gabadhii horey u sheegtay in ay guursatay wiil 15 jir ah ninkii shoodni matagaa ku soo boodabo waaba sakaraadbo ma aysan filaynin in halkan arrin ay ku arki doonto wiilkii 15 jirka ahaa ee horey ay u guursatay isla markaana ay ku wareejisay lacagteedii iyo dahabkeedii haddaba muxuu yahay arrinta mucjisada lahayd ee ay ku aragtay wiilkii 15 jirka ahaa ee horey ay u sheegtay inay u guursatay muuqaalkan gudihiisa ayaad ku ogaan doontaa iyada ayaa inooga sheekeen doonta habeenka wixii halkaa ka dhacay balse intaanan marka hore muuqaalkan idinla wadaagin waxaa idinka codsanayaa daawad in muuqaalkan aad like saartaan siina shargareysaan gaarsiisaan saaxiibadiina qaybta hoose ee commentiga aad ku reebtaan aragtidiina sidoo kale page-kayga Facebook ee Cumar Boole aad follow saarataan YouTube-kaygana aad subscribe saarataan $50 oo kaliya ayaa lagaaga daaweyn doonaa xanuunada kala ah isha sixirka jinka xasadka caado wareerka dhalmo la'aanta shaqada oo culeys laga saaro awlaada oo caasi kugu noqda walwalka iyo walbahaarka cabsida joogtada ah iyo wixii la mid ah haddii aad u baahan tahay in qaybaha si online lagu quraan saaro la xiriir nambarka shaashada kaaga muuqda gabadhan muuqaalka idinkaga muuqata hore waxay u soo bandhigtay wiil 15 jir ah oo ay sheegtay in ay guursatay isla markaana ay ku wareejisay hantidii ay lahayd balse arrin la yaab leh ayay sheegtay in ay ku aragtay wiilkii 15 jirka ahaa oo hore ay u sheegtay inay is guursadeen isla markaana ay ku wareejisay lacagteedii iyo dahabkeedii arrin ay la yaabtay isla markaana aan fariir iyo fijac ku noqotay ayay halkan ka sheegi doontaa isla markaana ay sheegtay in ay ku aragtay wiilkii 15 jirka ahaa haddaba maxay tahay arrinta ay la kulantay iyada ayaa si faahfaahsan uga sheekeen doonta ee muuqaalkan si degan u daawo muxuu ahaa ayaan dhaxdaas wiil 15 jir ayaan guursaday markaan guursaday hanti baan leh aniga masaaraan wataa dadcan geed aan gooyay aniga ma waaynaayey mana jirin mana waalni wiil 15 jir ah ayaan guursaday wiilkii markaan guursaday hantidaydi aan siiyey hantidii aan siiyey cunugii waa kibray wuuna ka soo bixi waayey tilaabadii aan rabay mise sidii aniga aan rabay wuu ka soo bixi waayey cunugii waa cunug jiranbo asagaaba jiran oo daawo rabo aniga lacagaan wataa geedaan gooyana ma waynaayey muxuu ahaa qof waalana mana waalni xiskayga juusta waayey adimaa meel walba i geysaa waddanka aan raba adimaa i geysaa muxuu ahaa wiilkii yaraa aan doonayo oo Soomaaliya aan ugu imaaday maasha Allah garoonkii aan cadda aan cagaha ku soo dhigay oo Ilaahay i keenay wiil yar baan doonay Soomaaliya joogo maadaama aan helay wiilkii yaraa muxuu ahaa odax nin walba tabartiisa ayay ugu tagtaa wiilkii wiil oo jiran uu ahaa waxa way wiilkii markaan is guursanay oo guriga aan galnay oo habeenkii koowaadba aan galnay muxuu ma farax miya ma naxdin miya garan maayo aniga de ninkii shoodni matagaa ku soo boodabo waaba sakaraadbo salaadii ilaa iyo habeenkii faleebooyinaan ku taagay dadkiisa la xiriir qof jiran waa isbitaal la seexiye qof jiran oo isbitaal la seexiye aniga dooni maayo filayaa in muuqaalkan ilaa iyo dhamaadka aad soo gaartay waxaan ka codsanayaa in muuqaalkan aad like saarto siina shargareyso gaarsiiso saaxiibada qaybta hoose ee commenti aad ku reebto aragtidaada sidoo kale waxaan ka codsanayaa in page-kayga Facebook ee Cumar Boole aad follow saarato YouTube-kaygana aad subscribe saarato inta muuqaalkan kiisa ay ku kulmi doono waa saaxiibkan Cumar Boole ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo